المتاب عرفتك مذ قلبي الصعاب. عرفتك يا ربي قبل المتاب عرفتك مذ قلبي الصعاب. عرفتك يا ربي قبل المتاب عرفتك مذ قلبي الصعاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. إخوتي في العقيدة، waxaan isku dayayaa inaan qisadaasi min qisati yuusuf salawaatu ullaahi wasalaamu calayh alkariim ibnu lkariim ibnu lkariim ibnu lkariim inaan wax ka nidhaahno. qisatu yuusuf waa qiso cajab badan, waa qiso qur-aanka meel qura ku soo wada aroortay, suuro kaamila ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyey oo suuratu yuusuf la dhaho. waxaan se u socdaa uun maadaama aynan qisadan ka wada warrami karaynin daraf yaroo ka mida inaan tilmaamo oo aan isleeyay ummadda soomaaliyeed malaayada si gaaray usii khusaysaa, ama abnaa'i saxwa ha ahaadaan ama caamadooda iyo jamhuurtooda ha ahaadaan, mid kastaba ha ahaadaane. qisatu yuusuf salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxay nebiga ku soo degtay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waqti dhib badani haysatay oo ay culammadu ku sheegaan inay tahay bacda caami lxusn, markii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi taageeradii dabadeed ee uu adeerkii ka haystay oo ximaaya u ahaa, ka ilaalinayay gaalada dhibteeda badan, iyo taageeradii gudeed ee gurigii uu hoyanayey iyo haweentii khayrka badnayd ee joogtay khadiija bintu khuwaylad iyana ay geeriyootay. labadii sanada uu nebigu ku tuursanaaba salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu waayey, dhibtu ay kusii tiro badatay, ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan ku soo dejiyey uga warramayo nebi isaga ka horreeyey oo ina nebiya oo ina nebi kala ah oo ina nebi kala ah oo isna la dhibay. idan waa tahbiit, wakadalika linuhabita bihi fu'aadak naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bima awxaynaa ilayk. waa tahbiit iyo qisas fiican oo alla subxaana wa tacaala uu u sheegayo. laqad kaana fii qasasihim cibratu liuli lalbaab. qisada tani waxay markaa ka warramaysaa nebi dhibaatooyin tiro badani ku dhaceen, nebi walaaladii u shireen oo god ku rideen, nebi la addoonsaday oo sida xoolaha la kala iibsaday, oo isagoo nebiya oo aabihii nebiya oo awowgii nebiya oo awowgii kale nebi yahay haddana noqday sidii neef xoolaa inta sariibadda la keeno intaa iga siiya kaa gadi maayo ay ka dhacday oo la kala iibsaday. addoon noqday oo guri addoonnimo ku joogay riq iyo cubuudiya dareemay isagoo beyt sharaf le ka yimi, ka sii baxay oo xabsi galay oo jeel haddana sanawaad bidca siniin ku jiray, ka sii baxay haddana oo boqor noqday ama madax noqday oo dadkaba arsaaqdoodii ilaahay haddana isaga gacanta u geliyey. kullahaa waa fitan iyo imtixaanaat, waxaasoo imtixaana nebigu soo wada maray. waxaan isku dayayaa marka inaan qayb yar oo kooban qisadiisa ka tilmaamo.
waxaan jeclay inaan ka tilmaamo qayb ku kooban gurigaas uu ku soo koray nebi yuusuf ee yacquub gurigiisii ahaa iyo walaaladii ilmihii wada joogay dhibtii ka dhacday iyo sidii ay u burbureen tashatudku ugu dhacay iyo bal wixii uu ku xallilay nebi yuusuf inaynu eegno ma innagana xal maynoo noqon karaysaa si aynu u eegno ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy laqad kaana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatun lisaa'iliin id qaaluu layuusufu wa akhuuhu axabu ilaa abiina mina wanaxnu cusba ina abaana lafii dalaalin mubiin اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين إلهي وحو قرآن كي نقول لقد كان في يوسف وحهبال حقيقة يوسف الرنكيسة يوسف يا ولالك الرنكيسة إن آية وغسغيهين للسائلين با إلهي سبحانه وتعالى kuwa wax isweydiinaya arrin weyn iyo aayaad baa ku sugan baa la leeyahay subxaana wa tacaala haddii loo firsado id qaaluu layuusufu wa akhuuhu axabu ilaa abiina mina wanaxnu cusba ina abaana lafii dalaalin mubiin markay yidhaahdeen baa la leeyahay subxaana wa tacaala bal waxaad xustaa dadka u sheegtaa markay yidhaahdeen yuusuf iyo walaalkii ayaa aabbe agtanada kaga jacayl badaya ama aabbe wuxuu ka jecel yahay intayada kale oo dhan yuusuf iyo walaalkii annagoo weliba annagu ah bay leeyihiin koox cusba ayaa laba wiiloo yaryar nalaga jecel yahay jacaylku ilaahay baa haya subxaana wa tacaala nebi yacquub wax dembiya ma samaynin aabbaha waxa saaran waxa weeyaan ilmihiisa inuu cadaalad sameeyo cadaaladda iyo jacaylkuna waa kala laba yacni jacaylku waa shay qalbiga qofka dega ilaahay baana muqallib alquluuba asbaab baana keenta inuu qofku qof gaara si gaara u jeclaado xataa haweenkiisu kala jeclaan karaa haweenku qabo laakiin waxaa faran oo laga rabaa inuu cadaalad sameeyo yacni jacaylku inaanu cadaaladda xukumin ee cadaaladdu inay xukunto مثلا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه dadka yaad u jeceshaa leeyahay caasho buu yidhi idan caasho wuu jeclaa dumarka kale wuu ka jeclaa laakiin haddana cadaaladda marna kaba tegaynin isagoo xanuunsanayo buka oo kici kari la ayuu marka la qaadaya lahaa ayna ana layla waraawa xagaanahay markaasaa la lahaa guriga heblaayo caawa lagu geynaya xataa isagoo jiifo oo xanuunsanayo xanuunku u dhimanayay uu jiifa ayuu isku dayay inuu cadaalad sameeyo gabadh walba habeenku gurigeeda ku qoraa inuu tago oo cadaaladda sameeyo idan cadaaladda iyo kalgacalku iskuma xidhna oday carbeed baa waxaa la yidhi war carruurtaada horta yaad u jeceshahay kolba kii yar buu yidhi ama kii baahan oday reer miyiya waxaa la yidhi carruurta kaad ugu jecesho kolba ka yar buu yidhi had iyo goor aabbahu iyo hooyadu ka u yarunbay koolkooliyaan waayo waxay arkayaan inuu ka daciifsan yaho ka jilicsan yaho kuwa kale waxoogaa ay dhaafsiisan yihin waxaan misaalkan u bixinaya waxa weeyaan mas'alada la isku maagi karaa waa haddii loo cadaalad sameeyo ilmaha loo samayn waayaba xumale ama kalgacalka iyagaa iskaa kala jeclaysiin karaa waxaa jira war hebel oo markaad tidhaahdo mid kuu dhega nugul oo haddaad hadashaba hee aabba kule iyo hee hooyo maxaa kuu qabtaa leh iyo mid mar saddexaadka hee odhanaya labada jeer hore kuu dhagoolaynaya isku si labadaba adaa dhalay labadaba waa carruurtaadii wuxuuba waa ilmahaagii qalbigaagu isku si u ahaan maayo kan marka aad fartaagtaba soo taagan ee kuu dhega nugul iyo kan laakiin haddana adiga wax waajibka ku saaran inaad u cadaalad samayso hadday mara tahay hadday soo dhowayn tahay inaad cadaalad u samayso idan cadaalad iyo kalgacalku marka hore waa kala laba ilmo yacquub aabbahood kalgacal bay ku haystaan hadduuba jiro inuu ka jeclaa id qaaluu layuusufa wa akhuuhu axabu ilaa aabina mina bay yidhahdeen aabe yuusuf iyo walaalkiibuu agtayada yacni naga jecel yahay wanaxnu cusba bay leeyihin annaguna koox baabaanu nahay culamadu 9 nin iyo waxbay ku sheegaan koox baanu nahay ayuu laba naga doortay ina abaana lafii dalaalin mubiin bay yidhahdeen aabba baadinimo cad buu masaladan kaga sugan yahay bay yidhahdeen
in 2 nin 9 nin la dhaafsadaa ma aha bay leeyihiin hal la aqbali karo. xaasidnima qalbigooda gashay. xasdiguna waa wax dhib badan. xaasidnimadaasi waxay keentay walaalkood oo ilmo yaroo carruur ah oo aan waxba geysan inay u tashadaan inay ka takhallusaan. andilaba wiilkan yar wax dembiye ma gelin, walaaladiina waxba kuma samaynin, laakiin xasdigaa ay xaasidayeen unbay waxay isu geysteen aan ka takhallusna. xaasidnimadu waa khatar. dee waa tii keentayba ilmo nebi aadamkii hore laaqtulanak buu yidhi markii ilaahay ka aqbalay. war ilaahay muxuu alla wuxuu ka aqbalaa min almuttaqiin, maxaad aniga ii dilaysaa? waa nooc min xaasidnimo. maxaa alla kaaga aqbalay ayuu walaalkii ku dilay. markii dambena waa kii murugooday ee dawakhay ee fa asbaxa min annaadimiin iyo fa asbaxa min alkhaasiriin ilaahay ku tilmaamayo. xasdigu waa shay dhib badan oo qalbiga markuu dego xasanaadka cuna, oo caqliga daboola, oo thinkinka fiican sida fiicane loo fakero iyo aragtida wanaagsan qofka ka lumiya. xaasidnimada tani waxay keentay yacni amraad alquluub waxay culammadu ku tilmaamaan marka hore bay yidhaahdaan waxay ka bilaabantaa qadab ama cadho. cadhadaa dhasha bay yidhahdeen xaqdi, xaqdigaa dhala bay yidhahdeen xasad. xasdigu waa min alkabaa'ir, dunuubta waaweyn buu ka mid yahay. culamaa'i suluuk ibn alxajar alghazali waxay ku tirinayaan inuu kabaa'irta ka mid yahay. xasadkaasaa nimankan qalbigoodii degay, waana isku wada nooc daqiinada iyo xasadka iyo daqliga iyo dakhanka iyo waxaasoo dhammi waa amraad alquluub. amraad alquluubku xanuunada bukaanada qalbiga dega iyagaa ka khatarsan bukaanada kaloo dhan. inaad qalbigaaga nadiifiso oo aad saliim ka dhigto, aakhirada waa ka ilaahay lama badbaadayo ilaa man ata allaha biqalbin saliim, qalbi saafiya cid alla ula timaada mooyaane. xaasidnimadani waxay ku kaliftay inay walaalkoodoo ka yar ay ku go'aansadaan inay dilaan. go'aankoodii wuxuu noqday uqtuluu yuusufa aw itraxuuhu ardan yakhlu lakum wajhu abiikum watakunuu min bacdihi qawman saalixiin. dila bay yidhaahdeen nebi yuusuf ama meel fa ku tuura. haye maxaa loogu tuurayaa? shaydaanku markuu wax kuu sawirayo ee uu insaanka luminayo sida saxaa si aan ahayn buu wax u tusay. caqliga bini aadamku waa wax fudud, si kalena wax loo tusi karo. wuxuu u tusiyey mas'aladii dhammayd ee walaalkooday dilayeen. yakhlu lakum wajhu abiikum bay yidhaahdeen. aabbaa wejigiisu inoo saafi noqon doonaa, inoo madhnaan doonaa. taa macnaheedu waxa weeyaan aabba alkhayaari alwaxiid uu haystaa. dee waynu innagayna jeclaadaa baynu leenahay hadday labadan ka takhallusna ilaa carruur kale ma haysteen. sagaalkeenna kanuun inaga jacaylku xaggeenna uu soo gudbayaa. markaa odaygu si uu inoo jeclaado aan ka takhallusna bay yidhaahdeen. weliba waxay kaloo leeyihiin watakunuu min bacdihi qawman saalixiin, kadibna waan toobad keenaynaa. dadku markay reer hebel maanta aan ku qaadna baa la yidhaha saa dambaynu xajka tegi doonaaye. mar haddaad dee marka hore ku kixisid hadhow waa iska toobad keenaysaa. idan marka hore dembiga waa la fudaydinayaa iyadoo lasii bilaangaraynaya in la toobad keeni doono. taasina toobad maaha, waa dembi aan weli dhicin buu rabaa intuu galo inuu yidhaahdo dabeetana kadib ayaan ka toobad keenayaa. walaalkood oo ka yar oo carruura ayay rabaan inay dilaan ama god ku ridaan. dabeetana cilladuna waxa weeyaan wajhu abiina baa khaalis inoo noqonayo, keligeen baynu helaynaa privilege, kadibna waa toobad keenaynaa bay yidhaahdeen. mas'alada tani waxa ay tilmaamaysaa shaydaanku waxa uu u suureeyey oo ah kow, dilka markay ka fakerayeen kamay fakerin, muu tusinin badiihiyaad. nolosha wax badan oo suurtagallaabaa jira. war mays odhanin talow haddii aad kashifantaan oo jariimada laydin qabto maxaa dhici doona? mays odhanin walaalkiin hadduu dhimanba waayo soo noqdo maxaa dhici doona? mays odhanin war haddaa walaalkiin dishaan aabba hadduu idin jeclaan waayo maxaa dhici doona? yacni intaasoo probability baa jiroo dhici kara. shaydaan mid qurun buu tusay, wuxuu tusay uun yakhlu lakum wajhu abiikum. amaa inay jariimadu kashifmi karto, inay takhtiidku xumaan doono, tanfiidku inuu ka xumaan doono, waxa dhici doono dhan may arag. waxaasoo dhan shaydaan intuu ka daboolay ayuu wuxuu tusiyey hal wax oo ah inay liibaani doonaan
markay arrinkan fuliyaan kadib waxaad suuraysataa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala farajka markuu furayo si yar yar buu u furaa mid iyagii ka mida baa laga yeedhsiiyey inuu yidhaahdo laa taqtuluu yuusufa mid iyagii ka midun baa ilaahay ka yeedhsiiyey waar ha dilinee god ku rida oo dadka waddada maraya ha qaataan oo sidaa ha ku lumo ee ha dilina bay yidhaahdeen ha dilina bay yidhaahdeena sidaa ku wada god ku rida oo hayna dhaafo saas bay ku yidhaahdeen waxaa dhacay markaasi in yuusuf la go'aansaday in god lagu rido god magaalada ka fog weliba ghayaabati ljubbi in lagu rido godka meeshiisa madoow ee hoosaysa in la dhigo kaas baa la go'aansaday waxaad suuraysaa iyadoo walaalada ay ku sidaan adoo carruur aan waxba iska celin karin dembi gelin wax dembiyo aad samaysaa aanay jirin waxa lagugu eedaynayaa arrin taafiha ay tahay oo aabbahabaa ku jecela dabeetana inta isugu kaateen ay god kugu sii ridayaan oo midba ka kale ku sii dhiibayo oo lagu sii fogaynayo haadihi suura ilmaha yar ay ku dhacdo muxuu walaaladii ka sawirayaa maxaa cuqdadu qaadaya intay leeg tahay saasay ula dhaqmeen maxaa ka dhashay waxaan rabaa inaan aada u soo koobo waxa aan rabo uun qasdiga si aan u gaadhi karo maxaa ka dhashay meesha tan waxaa ka dhashay aabbihii ay yidhaahdeen yakhlu lakum wajhu abiikum ma u khaali noqday maya ilaahay wuxuu tilmaamaya odayga murugadii ku dhacday inuu indhabeelayba inuu iyaga jeclaado daaye inuu wabyadat caynaahu min alxusni fahuwa kadiim ilaahay leeyay labada indhoodba way caddaadeen baa ilaahay leeyay murugo iyo xusni daraaddeed waxaa ilaahay tilmaamaya inuu alle unu calaacaalayo uu leeyahy innamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah waxaan u sheeganayaa murugadayda iyo tiiraanyadayda iyo waxaan ka cabanayo alle subxaana wa tacaala baan u sheeganaya waxaa xagga kale ka ratibmay walaalkood in la addoonsado oo qolo qaadato oo sida xoolaa la kala iibsado oo dabeetana guri boqor uu iibsado oo gurigaa uu addoon ka dhex ahaado oo haddana haweenay ay hungurayso oo uu haweentii diido oo isku dayda inay xoog ku kufsato oo uu ka cararay akhiiran in la yidhi ama ficladaa waad samaynaysaa ama waa lagu xidhayaa ilaa uu xadhigaan ka doorbiday inuu yidhi in la xidho haddana jeel galay waxaasoo dhibaa walaalkoodii yaraana ku dhacay kuwoodii walaalkii ku xigayna waa kii isagu farsamada ku qaatay kii inamada u weynaa waa kii yidhi war waa ogeydeen aabbo markay inanka yar musalxaniya leedahay noo sidaa waa kuwii lahaa ina lahu aaban shaykhan kabiiran faqud axadanaa makaana aaba weyn oo da oo aada u dhibban buu leeyahay annaga midkaaya qaada bay lahaye waxay dareemayeen dhibta aabbahood haysataa intay leeg tahay waxaa ku dhacay baynu leenahay in kii weynaa yidhaahdo waananu dee weji dambe oo aabba aan ku leeyahe waxaan meesha kula noqdaa ma jirtee falan abraxa alarda xataa ya'dana allahu lii aw yaxkuma allahu lii wa huwa khayru lxaakimiin dhulkaygaasaan iska wareegaya aniguna waa iska tegaya aabboo ii idma iyo ilaahayoo xukun kale soo dejiya mooyaane anna habowgaygaasaan ku jiraya carriga ilaahay baa iska qabanaya o isna iska tago waxaa ku dhacay odaygii in qaar ku sii hadhaan weli sii rifaya tallaahi tafta'u tadkuru yuusufa xataa takuuna xarada aw takuuna min alhaalikiin qaar le weli yuusuf aad sii xasuusan tahay ilaa iyo intaad ka halaagsamayso ka jabayso waxaa ku dhacay yuusufkii ahaa alkariim ibnulkariim 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 ee nebi yacquub dhalay ee ina isxaaq sii ahaa ee ina ibraahim sii ahaa ee 3 nebi ku abtirsanayay addoon yar inuu noqdo reerkii inuu sidaa u baabao su-aashaan u socdaa markaa waxay tahay haddii xaasidnimo iyo wax yar oo la rabo in la kabursadaa ay gurigii nebigu joogay sidaa u gashay gurigii wadaagayay kow aabbanimadu isku wada xidhaysay walaalnimadu isku xidhaysay iimaanku isku xidhayay hadday sidaa tashatudkaa ku riday oo mid luma mid addoon noqda oday indhabeela mid weli odayga ku sii maagayo sii jooga gurigii hadduu sidaa noqday haddii guri kaa ka weyn dhibtani dhex dhacdo maxaa isagu siduu u ekaanaya
يعني قيس بكرها أمة مثلا صومالي محا كلا قبصدي واليوم بقى في سرسارة وحيد هذا الملا والله المشي هيستأكل قد بس كعنانه يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين بقاته انت إنه كو يردوا فنه إنه ماشي أنا قبصنه ده بيتنا ددوان وناكسن بينه مركان نقولين إنك عدالة وما دبرينا لقول فيه محاكا صوبحي قرقي رير يعقوب وحي كصوبحا كصوبحي يعني أمد تشتت وكدعي لنتي كلا فردي كلا يعدي مدبن ميل كدعي إمسا آبا إندبالي هوية إندباشي قف وين رفاتسن إمسا المير سيدا يوسف كاقود كالقور رداية لإيب جاي ودوني دا ميلها سيلا كلا يبسدو هيومن سبار بكا نقضي إمسا وضي رير كلا هضادمي وكلا لمي وميلها كو عري إمسا مدلي أنو ودك هادي بقول نقض مايو فلا نبرح الأرض حتى يأذن لي وميلها كو هابوسن oo isla meesha daydaygu joogan iyo mooryaantu dib ha ugu noqonana dhulka jooga imisa yani waxaan sawiri karaa gurigii yaraa hadduu caynka u ekaaday kii weynaana Soomaalida aragtay caynka u ekaanayo mal hal maxaa xal ah qisadan dib ugu noqonaya nabi yusuf mashkilada markuu arkay waxay isweydiinayna muxuu ku xalilay waxaan leeyahay dhowr shay buu ku xalilay العفو ثم العفة ثم الإحسان نبي يوسف حكو حلل مسألة عفو ضافس هي عفة اللسان دور سوني وعرب كيسا دوري هي إحسان ولا الذي يدك يسميه saddexda mid ka mid ah haddaan tilmaamo haddii dhaawac uu dhaco waxaa habboon inaan la sii farafaraynin si aan u sii ballaadhayn nebi yuusuf wuxuu isku dayay dhaawacaas inuu ku ilaaliyo kow xataa yalta'im iljurx inta uu jurxigu isaga imanayo inuu carabkiisa ilaaliyo oo carab fiican yeesho yuusuf wuxuu noqday markaas iyo uu ina baray oo aynu qisadan ka baranaynaa koobaad qofka muslimka inuu cafiifu lisaan soo baxo qof carabkiisu aad u dhowrsan yahay inuu noqdo walidalik ayaa nabi yuusuf isagoo xabsi ku jira oo naaga intay u heshiiyeen wixii la ogaa ay ku sameeyeen oo dabeetana biduuni dambi lagu xidhay ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنن آياتك markay arkeen kadib baabay rabeen inay xidhaan la xidhay oo xabsi ku jira ayaa boqorkii riyo u baahdo wuxuu yidhi u geeyahay soo fasireen ma oranin waarinka arqabaada bay xidhay aan ku fasirayna kala kaxee isagoo ay xidheen ayuu riyada u fasiray hal laga soo saaray baa la yidhi xabsiga markii la yidhi hal laga soo saaray yuusuf cirdigiisii buu ilaashaday wuxuu yidhi boqorka waxaad ku tiraahdaa فما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن بل كورن حالك هوينكي قعمها الشرشري مو أورانين وربقرو سلامت هذه اللي يتاق ويارن كيدي كورن إلا إلهي قرأك وعكوت المامة وراودته التي هو في بيتها عن نفسي أما وكوي هوينك كلا لها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين muu odhanin warkayskii islaantaada ka waran muu odhanin maxaa dembi la-aantaad igu xidhay ka waran muu odhanin dumarkii wuxuu tilmaamay bay yidhaahdaan qisada meel laga fahmi kara uunbuu ka sheegay isagoo raba carabkiisa inuu ilaaliyo maa baalu niswati allaatii qatacna aydiyahunna haweenkii gacmaha isjarjaray arrinkoodii bal ka warrama ma soo qaadin bay yidhaahdaan boqorkaa gabadhii xaaskii uu qabay ma soo qaadin ما أرانين هوين دادي وجبنا بورتي على الأقل waxay dhahdaan cammama walam yusami bay dhahdaan waa iska caam yeelay arrinka oo cid gaara ma tilmaamin waa masaladan shalay idin tilmaamay nabigu lahaa ma baalu qawmi ma baalu aqwaami uu tacmiimiyey nabi yuusuf wuxuu isku dayay inuu carabkiisa ilaaliyo oo uu walaaladii aanu wax xun odhanin waayo wuxuu rabaa
dadka qiyaadadan raba inay noqdaan mujtamac culamo raba inay u noqdaan maamul raba inay u qabtaan raba inay hogaamiyaan waa inay noqdaan dad carab fiican dad afkoodu aanu dadka xagxaganayn waa inay noqdaan walidaalik ayaa yuusuf waxaad garan kartaa markii suwaacil maliga la waayey ee walaaladii laga soo saaray yarkii laga soo saaray boqorku halbeegiisii galaankii wax ku misayey waxay yidhaahdeen yuusufkay godka ku rideen bay ka hadlayaan dabeetana isagiioo madaxa bay u yimaadeen ma garanayaan inuu isagii yahay waxay yidhaahdeen markaa in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl weedhaa u fiirsada bal in yasriq faqad saraqa lahu faqad saraq waxay leeyihin hadduu isagu waxaday waxaa waxaday bay idhahdeen akhun lahu min qabl walaalkiisii horea tuug ahaan jiray bay idhahdeen isagay sheegayaan haddii nimankii godka kugu riday ee aabbahaa kaa soo fogeeya addoonkaa dhigay ee waxaasoo dhiba ku soo mariyey adigoo madaxa intay kuu yimaadaan haddana ay ku yidhaahdaan tuug baad ahaan jirtay maxaad odhan lahayd tug iyo tuugtu dhashay idinkaa gala xabsigaad odhan lahayd yani haddaanad laynin ugu yaraan afkaaga maad xejin karteen ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala faasarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahu nebi yuusuf naftiisa wuxuu ku qariyey oo aanu iyaga u sheegin baa alla leeyahay antum sharu makaana niyadda wuxuu ka yidhi uun idinkaa yuusufkaa sheegaysaan ka dhib badan ninkii god kugu riday ee ku sababay inaad addoon noqoto ee sababay inaad maxbuus noqoto ee sababay aabbaha iyo reerkiinni inaad ka tagto ee sababay inaad qurbo ku noolaato haddana hadduu cay kuula yimaado oo uu leeyahay tuug baad ahaan jirtay ayuu wuxuu diidan yahay inuu uga jawaabo waxa ay taasi tilmaamaysaa bay culimmadu leeyihiin dhowrsoonida cifadii carabka yuusuf iyo siduu u ilaalinayay iyo sida uu u rabay in uu maxay ilaaliyo walaaladii mustaqbal buu ka damacsan yahay waxa kuugu filan markii dambe ee uu soo wada ururiyey reerku isu yimi yuusuf ee uu ilaahay baryay subxaana wa tacaala wuxuu laha waqad axsana bii id akhrajanii min asajn wajaa'a bikum min albadw ilaahay waa ii samafalay buu yidhi markuu aniga iga soo saaray xabsiga idinkana baadiyaha idinka keenay waxay culammadu yidhahdaan latiifatii lamidaa ku jirta xabsiga iyo godka iyomaa adag xabsiga dad baa jooga cunaa laysa siinaya waa meel bini aadam ku nool yahay laakiin ceelki iyo godku meel cidlaana waa ku yaalay khayaabatljub buu ahaa ilmo yar buu ahaa waxba kuma haysanin dee wuu ku baktiyi lahaa markaad ilaahay u cabanaysa aad u sheeganaysa alle subxaana wa tacaala wuxuu nimco kuu galay dee ta weyne khatarta alla kaa soo saaray baa la tilmaamaa xabsiga markuu ku jiray nin weyn oo waxgarada buu ahaa godka markii lagu ridayay ilmo yaroo carruur u ahaa waxay yidhaahdaan wuxuu dhowrayay khaatirka walaaladii muu odhanin id akhrajanii min aljub ma odhan bay idhaahdeen godka markii alla iga soo saaray waayo wuxuu diidan yahay walaaladii inuu xasuusiyo wixii ay sameeyeen dabeetana cadowgii kale boqorka ahaa wixii uu geystay buu ka warramaya wuxuu leeyahay markii ilaahay xabsiga iga soo saaray idinkana baadiyaha idinka keenay buu yidhi ma odhanin idinkana faqriga iyo bu'siga idinka keenay waayo meeshuu ka keenay waxay abaaraa dhacay waa caydhoobeen dhib badan baa haysatay baadiyuhu marna waa barwaaqo oo caano iyo hilib iyo wax waliba waa yareen waa laga dhargaa marna maxay dhib baa ka jirta waa isaga camimo wajaa'a bikum min albadwi buu yidhi waxay idhaahdaan waxaasoo dhammi waa maxay mashaacirta walaaladii buu ka ilaalinaya carabkiisa inuu ku tajriixiyo haddaad rabto inaad ummad qaa'id u noqoto oo hogaamisid haddaad rabto inaad ummad caalim u noqoto oo wax u sheegtid oo kelimadaadu masmuuc noqoto ha isku dayin inaad dadka xagxagato xataa dhacdooyinka jira si latifan isaga guud mar ha isku dayin inaad farta ku mudmudid waayo carabku wuxuu ka mid yahay waxa wax kala fogeeya walidaalik baa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo haweenaydiisa caaisha ay la fadhidaa yahuudi soo martay wax salaamaya isaga dhigeen xadiidkii saxiixa waxay ku yidhahdeen assalaamu calaykum assaam laamkaa laga boodaya assalaamu halkii laga odhan lahaa ayaa laamka looga boodo waxaa la yidhaha assalaamu calaykum assaam macnaheedu markaa waxa weeyaan geeriyo korkaaga ha ahaato
nebiga waa la habaraya laakiin waa loo quusinaya waxaa la ysaga dhigayaa in la salaamayo geeriyi korkaaga ha ahaataa lagu salaamaya haddii nin intuu kuu yimaado geeriyi korkaaga ha ahaata uu kugu salaamo asaad ogtay wuxuu ku hadlaya maxaad ku odhan lahay adiga iyo aabbahaaba korkaaga ha ahaata de soocankaa maha dhaqanka soomaaligu yacni markaad ogtahay inuu kugu odhanayo waxan asaad garanayso wuxuu sheegayana nebigu wuxuu iska yidhi wacalaykum korkiina idina ha ahaato calaykum xataa kelimatu saam ma soo celin bay yidhaahdeen isagoo carabkiisa ilaashanaya oo calaykum faqad wuu ku gebagabaystay caaisha istiri nebigu waxba ma maqal maba fahmin wixii nimankan ay ku yidheen dabeetana caaisha afka la kala baxdo waxay tidhi wacalaykum assaamu wallacna idinka geeri iyo nacdaliba korkiina ha ahaata bay tidhi wuxuu nebigu ku yidhi caaishaay qofka muslimkii faaxish iyo mutafaxish toona maaha qofka muslimkii mid af xun ma aha buu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiyo waxay yidhaahdeen miyaanad maqlayn bay tidhi waxay moodaysaa inaanu weli nebigu maqal waxay yidhaahdeen miyaanad maqlayn bay tidhi ilaahay rasuulkiisiyo waxay rabtaa in weli la gar siiyo markaasuu nebigu yidhi waan maqlayay waxaanse ku idhi waa calaykum idinkana korkiina intaasaan ku idhi buu nebigu leeyay idan qofka muslimka ahay haddii yahuudi kugu leh geeriyi korkaaga ha ahaato uu nebigu calaykum qura kaga gaabsaday caa'ishi markay ku tidhi calaykum assaamu wallacnana uu radiyey nebigiiyo uu ku yidhi qofka mu'minkii faaxish iyo mutafaxish toona ma aha famaa baal walaaladaada muslimkaa markaa maxaad odhan doontaa markay kugu gafaan iminka iyagoo aanay kugu gafin baaba dadka looga taaglaayay oo carabku tiro batay oo maagistu tiro badatay oo aan waxba lagu hambaynayn haddaad masale yar gafto ama wax yaroo khata ay kaa dhacaan cidiba kuwa hambayn mayso laakiin ninka raba inuu kor fuulo raba inuu qaa'id ummad u noqdo raba inuu ummad hogaamiyo raba inuu ummad diin u sheego raba inuu dadka ilaahay ku xidho subxaanahu wa tacaala ilaahay dadka inaad ka firdhisa maaha afxumadaadu ilaahay dadka way ka eryaysaa idan inaad ka firdhisa maaha waa inaad dadka u soo dhawaysaa yuusuf waxaynu leenahay awalu shay uu qaatay waa mas'alati cifatu lisaan carabkiisa inuu ilaaliyo mas'aladaa wuxuu u qaatay baynu leenahay kay yalta'im iljurx si dhaawuc aanu usii humbaabuqin ama se aanu usii weynaanin qadiyadda labaad ee yuusuf qaatay waa mas'alo loo baahan yahay inaynu aada u eegno qadiyadda labaad ee yuusuf qaatay waxa weeyaan markii walaaladii ay u yimaadeen ay isu yimaadeen wuxuu ku yidhi hal calimtum maa facaltum biyuusufa wa akhiihi id antum jaahiluun war ma garanaysaan horta waxaa ku samayseen yuusuf iyo walaalkii beriga ay jaahiliinta ahaydeen waa u cudur daaraya qaaluu a innaka la anta yuusuf oo ma adigaagan hor fadhiyabaa yuusufa bay idhaahdeen qaala ana yuusufa wahada akhi aniguna yuusuf baan ahay buu yihi karina waa walaalkay qad mana allahu calayna ilaahay baa nagu galladaystay nimcana siiyey innahu man yattaqi wayasbir qofka alle ka cabsada ee sabra fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin wuxuu tilmaamaya yuusuf cabsida iyo sabirku ma lumaan rag iska dhicida haddaad iska dhaafto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala tiisa qaadatid kaama lumayso markaasay dhaar bilaabeenoo waxay dhaheen qaaluu tallaahi laqad aataraka allahu calayna wain kunnaa la khaati'iin ilaahay baanu ku dhaaranay ilaahay waa naga kaa doortay bay idhahdeen annaguna kuwa gafsan baanu ahay dabeetana yuusuf wuxuu ku yidhi laa tahriiba calaykum alyawm yakfiru allahu lakum wa huwa arxamu araaximiin canaani korkiina ma aha buu yidhi cidiba idan canaanan mayso weliba ilaahay baan baryaa alla dembigiina ha dhaafo yuusuf muu aargoosan nimankan iyagoo nimankii godka ku riday nimankii walaalkii wixii ku sameeyey aabbahood nimankii wixii baday reerkii nimankii kala firdhiyey wixii oo dembiya nimankii sameeyey markii dambe xataa weli kusii adkaysanaya lahaa yuusuf kiibaa tuug ahaan jiray waxaa nimankii shubayay iyagoo ah ayaa ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi laa tahriiba calaykum alyawm canaani maba jirto maanta cidaydan canaanan mayso ummad haddii la rabo in la isu keeno isukaanku wuxuu ka bilaabmaa in la iscafiyo cafisku waa umamka waxa inay wada noolaadaan keena umamku haddii la yidhaahdo ha loo kala xaq soro kaniba kan wuxuu ku gooyay ha loo kala gooyo waa la isku madhaaba cadaaladda waxaa lasoo hortaagaa inta yar ee faasiqnimo dhaaftay laakiin ummaduhu ka umma inay iscafiyaan bay ku wada nool yihiin inay isu tanaasulaan ayay ku wada nool yihiin ummadda aan cafis dhexdeeda ka dhacaynin they can't survive ma noolaan karaan
ما wada joogi karaan ولذلك buu nebi yuusuf wuxuu ku bilaabayaa arrinkiisana uu rabaa mas'alati alcaf inuu cafiyo walaaladii muxuu u cafinayaa wuxuu rabaa mujtamaca kale inuu dhismo oo mujtamac jira uu soo baxo wuxuu rabaa qoyskan inuu dib u ururiyo oo dadkan muslimiinta uu dib isugu geeyo ولذلك buu wuxuu leeyahay laa tasriba calaykum alyawm يغفر الله لكم ومسألة runtii cid kasta oo rabta inay mujtamac hogaamiso ay ku dhaqanto waa mas'aladan rabo inuu dariskani ku saabsanaado kastoo waqtigu cidhiidhi yahay waa mas'aladu nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ku dadaalay amhilo kooban baan idin siinaya nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dagaalkii uxud buu galay rag buu meel faray inay ilaaliyaan raggii meeshii way ka soo yaaceenoo xoolaha wax ka qaatay is yidhaahdeen meeshii iska hagaagtay dabeetana way jabeen muslimiintii jabkii muslimka ku dhacay waxaa la garanaya in toddobaataneye la dilay in raggii jabkii ku dhacay in la yidhi nebigiiba waa dhintay nebiga in ilkaa badh laga jejebiyey in madaxa birti ka gashay in dhiig laga keenay salaaddii duhur inuu fadhiga ku tukado uu kici kari waayey firdhadkii raggu iyo siduu jabayna saxaabadii badh baa orodkii madiina dib ugu galay madiina rag baa tegey oo dib ugu noqday haddana ilaahay baa qur-aan soo dejiyey la rabo mujtamacan sidii loo dhisi lahaa mujtamacani jab gaf baana dhacay macsaa keentay in la jabo la jab laakiin malxal may uun in la iscanaantuun oo hadal uun la wadaabaayo la yidhaha idinkaa dadka jabiyey iyo caynkaasaa dhacday iyo waxa kan iyo inuu kala kaxeeya meesha kuwiina kani qaar wax lala wada karaba ma tihidine nimankiini berigii wixii sameeyey soo ma tihidin maya ilaahay qur-aan buu soo dejiyey uu leeyahy fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalb lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr ilaahay nebiga wuxuu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi naxariis xagga alle ka timi daraaddeed ayaa dadka ugu jilicsanaatay baa ilaahay leeyahy ee haddaad ahaan lahayd mid af adag oo qalbi engegan dadkuba waa kaa yaaci lahaayeen walow xaqna sheegay laakiin maxaa nebiga lagu yidhi facfu canhum baa ilaahay yidhi cafi mujtamaca muslimkaa dib u ururi cafi baa ilaahay ku yidhi kow wastakfir lahum weliba ilaahay wuxuu leeyahy ilaahayna dembi dhaaf u weydii kii macsida galay iyo kii firdhaday iyo kii jabayba ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf u weydii saddex waxaa kaloo ilaahay leeyahy washaawirhum fi lamri weliba saasay talada kula wadaagaanee la tashaba ilaahay yidhi mujtamacaasi saas buu talada kugula wadaagaayay washaawirhum fi lamri baa ilaahay yidhi arrinka kala tasho macnaha meesha ku jiraa markaa muxuu yihi haddaad rabto ummad inaad hagto oo wadid ma aha inaad ummadda gafafkeeda xisaabisid ama inaad tidhaahdid hebel baa beri dembi galay maalin buu hebella sidaa yeelay dadkaba dee cid aan maalin gafin la soo heli maayo cidiba kugu soo hadhi mayso haddaad kii maalin gafaba go-a u riddo yaa kugu soo hadhi adiga iyo masallahagu waa isku soo hadhi doonaa qof dambe oo agtaada jooga arki kari maysid taa macnaheedu waxa weeyaan qofka raba inuu ummad hago ama se uu hogaamiyo waa inuu noqdaa qof dulqaad leh waa inuu noqdaa qof qalbi ballaadhan leh waa inuu noqdaa qof xagxagashadu aanay dhibin waa inuu noqdaa qof wax cafiyi kara waa inuu noqdaa qof dadka tala weydiin kara aan ismoodin inuu keligii saxan yahay nebi maxamed isagoo rasuul ilaahaya oo waxii uu cirka kaga soo degayo oo ilaahay majaraa u hayo hagayo ayaa haddana ilaahay wuxuu leeyahy washaawirhum fi lamr adaan nebiyo keligaa caalima ilaahay kuma odhanay arrinka keligaasaa ku waday ilaahay wuxuu ku leeyahay washaawirhum fi lamr maca annaka nebiy aad ilaahay rasuulkiisii tahay dadka la tashabaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waktigoo kooban daraaddeed aan soo koobo weliba qisa thaaniya qisadaynu shalay akhrinaynay xaadithatul ifk qiso dhib badan oo xanuun badan bay ahayd xaadithatul ifk dadkay dhibtay waxaa ka mid ahaa abibakar waxaynu soo sheegnay xaadithatul ifk raggii faafinayay inuu ka mid ahaa mistax ibnu athaath mistax hooyadii umu mistax abibakar habarwadaag bay ahaynoo laba walaalaa kala dhalay mistax iyo hooyadii
أبي بكر باب بيلي أو فقرة مسلمين تي مهاجرين تي كمدي مصطح مركاسي قف بو قلي ونم بدري يرتح أهل بدره لكن خطأ بو كل عياه إنه الرميستي وركي لودي كتر كتان تاها وحكا غايب قلي مركاسي يعني واحد تلمامس غفلة الصالحين كوين يسكتشرته نكو يسقوا بدري أهل بدره أي هذا نوحا كدعي إن دبت تاني كدعده أهل بدر نواكو النبي يقول يا إلهي با طالع ذو يلي اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وأن بدر يا مركا مصطح نين مال سوكا أمها والصحابة ذاتك تقول فضي بدنابو كمدي هدنا واكحوا ما تيمال انت تنوح مودي وركي لفافين ينو النبي هيا وكا غيب قالي إذن إن أنت أي حقالك هاي ما إيجين أبي بكر أو والد ما إيجين أبي بكر وهدنا نكي قودين يبيلين ما إيجين قاض يدي النبي ما إيجين وها كل عضينا هوس مرتو مسألة ذاك غيب قالي إلهي مركو براءة دي سود شيء إن أنا عاش الدم بيجان قبل أيوة أبي بكر عراض أبي بكر وحكم ده هبار ده صحابة الرجل وشرارة كلها مركو عراضه رجع وعرض كل البكم ده أبي بكر مركا وحك عراضي نينكها إسلام نما ودوري واي تولي ما ودوري واي قرابة نما سك ودوري واي وسجوا بيلين وحسين هدنا دوري واي marka budda ma qaadanin waxna lama soo doonaan isma oran dile wuxuu buu yiri ninka anigu wax dambo aan siinaya ma jiro biilkayga ka goostay خلاص wax dambo siin maayo waa ka dhaartay in wax dambo siinin ilaahay baa quraan sabada ka soo dajiyay wala yatali ulul fadli min yay dhaaranin baa ilaahay yiri kuwa ilaahay wax siiyay yay dhaaranin saakinta inay wax siiyaan kuwa ilaahay wax siiyay yay ka dhaaranin baa la yiri subhanahu wa ta'ala waayo إلهي بوحلي وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم هعفيا با إلهي لي وهردا فانو هكتشيستان وأبي بكر نك الله أمريا إساقا الدنبي قال لك قلي إساقا إن أنت سي وحن لك شيء إساقا لعكت بحين يبيلك هدنا إلهي إساقوا الله الله سبحانه وتعالى يقول لي وليعفوا وليصفحوا هعفيو أو هردافو سببت وامحي إلهي بوحلي ألا تحبون أن يغفر الله لكم إنكم يدن شعلين إلهي دنبقين دافو إلهي ساقاكو أبوري وكو أرزاقي وكو عافماتي إمسا قربة عاصدة ما أنت إمسا قربة إنو معسيق الله وابدانتي هدانا دي مقوصنا إلهي بينو قعما إنتهو تاقينا وحلينا إلهو نو دنب داف سوعي كما واحد لكتايا ديقو أوك oo ilaahay ku abuuray ku arsaaqay wax ku siiyay og waxaad ku sabaysay ayaanad hadana quusanayna ya rab allahumma ighfir li dhanbi ayaad ilaahay baryaysa ilaahay markaa wuxuu leeyahay waaridin baano saayidin arsaaqoydin abuurtaba igu gaftaare ala tuhibbuna an yaghfir allah lakum miidan idinku ba jecleen ilaahay gafkiina dhaafo wa taban qof waliba waa jecel iyo muumin in ilaahay gafkaaga dhaafo bas adiguna muslimiinta gafkooda dhaaf inta uu sameey أدونا مسلم ككلا ولا الكاية اسكت دي مسألة العفو إن دولتي معه سيدا أوجد أي النبي صلوات الله وسلامه عليه حديث كي بخاري وكالغوت الماما من انتقم لنفسه أبدا ولجي وحيساق اللوجستين أنو كبائر جدني وحيساق اللوجستين وكحديث كي صحيح كويا لشيء إن يجوا غزوة دجال خيمي وأي ميل دير الوصاب حد بتنا ماشي بقى نبجد هرصدي قارق كليلة دبتنا النبي صلوات الله وسلام عليه جد بسكه هرصدي سيفتي سينا جد كلان كميدا أيو صدي إسقى إسكا شيفا أيان نقالة دي كميدو ربادي أبا عيدا كصادح قاضي وقار لا وضع شيفا ولا دالي أنتو عيدا كصادح قاضو النبي جاي سودول تاجي دبتنا سيفتي النبي يقول له سودجي مركو له سودجي النبي قال شيفا بو سيفتي قالك كلام بحي مركو قالك كلام بحي والنبي قال له دول تاجي والنبي وارك دبتنا نجي رميجا با انتو hadlay buu xidhay man yamnacani minka yaa iga ka celin maxamedow maanta waa ku hayaabu leey seeftina waa la dul taagay waana tii nabigu seef ma haysto yaa iga ka celinaya buu ku yiri nabigu ayuu nabiga ku leey nabiga wuxuu yiri allah ilaahay baa iga ka mancin illa waa ki ilaahay yiri wallahu ya'simuka min an-nas markaasuu ku celiyay ninkii reer baadaha man yamnacuni minka yaa iga ka rabi markaasuu nabigu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi allah إلهي بقى كاربي مركزو كعلية مرصدها من يمنعني يا إيجا كاربي
nebigu wuxuu yidhi ilaahay baa iga kaarabi ilaahay baa ka rabay oo intuu ninkii yaro kurbaday unbaabay seefti ka dhacda dabeetana nebigaa qaatay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isna intuu isla dul taagay buu yidhi markaa man yamnacni minka annaya iga kaarabi buu ku yidhi ninkii baryootan buu bilaabo wuxuu yidhi kun khayra aakhidin ku seef qaata kii u khayr badnaa noqo icafi iska kay dhaaf hadalkii bay saxaabadii maqasho way soo urureen markaas waa la soo yaacay waxa loo yimi ninkii oo fadhiya iyo nebigoo seef haysta xadiisku saxiixaynku ku yaalla dabeetana nebigaa uu sheegay oo yidhi ninkani caynkaasi u sameeyo dabeetana ilaahay bay iga kaa celinaya baan idhi oo markaan na qaatay wuxuu yidhi ku seef qaata ka u fiican noqo markaa waa iska cafiyey waa iska sii daayey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ma odhanin assassination baan dirqi kaga baxsaday yani intaa in leegun baan assassination kaga baxsaday alaga takhallusa ma odhanin waa iska sii daayey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markuu ku yidhi kun khayra aakhidin khalaas iska tag buu ku yidhi waxaan tilmaamaynaa markaa waa maxay waxaan tilmaamaynaa haddaad rabto ummad inaad hagto waatii la tilmaamayay nebigu fatxu maka markuu tegey sanad xasana laakiin mursala waxaa la wariyaa inuu weedhii yuusuf ku yidhi laa tatriba calaykum alyawma yakfir allahu lakum quraysh oo wixii la ogaa ku samaysay oo sidii la ogaa u gashay ayuu nebigu wuxuu ku leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dembi korkiina ma aha iska taga waa cafiyey idan waxay leenahay cafisku waa waxaa looga baahan yahay ummadda dadka raba inay hagaan oo hogaamiyaan dadka raba inay hagaan ama se hogaamiyaan waa waxaa looga baahan yahay walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoo tilmaamaya waayadan dambe magacyadii baaba la isku qabsado ana salafiya adiguma tiidiya adaa abaha ka taagan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala astaamuhu inoo siiyey dadka salafka inay lahaayeen qur-aanka ilaahay ku sifeeyey qur'aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrujuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaguuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaa'ika hum asaadiquun fuqaradii baa alla ka warramay muhaajiriinta ahayd ee ilaahay dartii u hijrootay ee alle raalli ahaanshihiisa iyo wanaagga doonaysay kuwaasi baa ilaahay yidhi waa hum asaadiquun waa kuwa run ku sheegaya iimaankooda iyo hijradooda أنصار با إلهي كورما وحلي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أنصارنا إلهي وات المام صحابة دي أنصارية مهاجرين بهنا الله بضع أمانتو دي با إلهي قرآن الشاقي وسلف الأمة كوا وددو ده هيا الله الشاقي مركا قولا داسي kuwa astaanta leh ee muuqaal kale la yaqaano ee nebi maxamed rabbeeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee cadaaladooda iyo wanaagooda ilaahay qur-aan cirka kaga soo dejiyey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala dhabbahooda kuwa hayuu alla sheegay ilaahay wuxuu yidhi markaa waaladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ilaahay wuxuu tilmaamayaa waaladiina jaaءuu min bacdihim iyaga gadaashood kuwii yimi ee ummaddii ka dambaysay muslimiinta ah waxay odhanayaan baa ilaahay yidhi rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ilaahow annaga iyo walaaladayadii kale ee iimaanka nooga horreeya muslimiintaba ilaahu dembigooda dhaaf rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إلهي يو حاسد نما يحقد يحمو قلوب تيده وقلين اندتك مؤمنين تيكالي إذن صفة السلفية في الكتاب وحيث المام ساين يهين دتك مسلمين تقلب صافية وهيين يهين يعني حقيقة وحا معتقد كينو صحيح laakiin waxaa kaloo muctaqadka raaca suluug iyo dhaqankuna inuu sax yahay caqiide jaafa oo aan dhaqanba dhalini ma jirto shareecada islaamiga walidaalika muctaqadku saxiixa noqdo laakiin muctaqadka saxiixa ah ee qalbi saxiixa ku jira waa in suluug saxiixi ka soo baxa dhaqan saliimi waa inuu ka soo baxa walidaalika baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa waxay rumaysan yihiin dhaqankay dhalaysay inuu yahay kan ah inay ilaahay dembi dhaaf weydiisanayaan mu'miniintii hore raafidadaa waxay ku caanbaxday kuwii hore un inay wax ka sheegaan oo caayaan oo maagaan oo saxaabadii badhba
meel in ku tuuraan laakiin ahlu sunna saxaabadii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh dhammaantood waa nabadgelinayaan waxay taagan yihiin rabbana ighfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina ghilla liladiina aamanuu ilaw qalbiga yaga ha u yeelin hilli iyo xaqdi كيف بعد مؤمن غلي حقد وقاد سيدو إلهي أهل الكتاب كيري ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إلهي وحولي وحي تعلي ننبضنا أهل الكتاب كمدي لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا إني إيمانك الندبدي قال لما يدين عليان قال لما دم وناك بكوغين ما يحسدا من عند أنفسهم بإلهي لي iyagoo jidkan ay hayaanba inuu lumsan yahay they know well wadadan ay hayaan inay masduudtay mid oodantay inay tahay haddana waxay rabaan baa ilaahay leeyahay adiguna inaad dhabaha la raacdo xasadan min cinda anfusihim baa ilaahay weliba ilaahay wuxuu leeyahay min bacdi maa tabayana lahum lxaq inta ay garteen wadada xaqa iyo risaaladda ilaahay nebi maxamed u soo dhibay inay sax tahay iyagoo gartay weliba ayay xaasidnimo haddana xaggan u mareen baa ilaahay leeyahay laakiin ilaahay muxuu yidhi facfuu wasfaxuu حتى يأتي الله بأمره يدو مسلمين تلهذين اسكا عفي اسكا ضافة انت إلهي أرنك ككيني ومرتي جهاتك وحلا نوعين تاني سودين محين تلمامينا للكفار هدي لا يري فعفوا واصفحوا مؤمنين تمحات كي يليس مركا ورهدا دارك تدد اسكو دغن او كلا فقي واي وصفه اهل النار إلهي كو النار تقلي وحو كلما دخلت أمة لعنت أختها naarta markay koox gashaba kooxda kale nacda shaabaa la yiri subhanahu wa ta'ala wasifaadka ahlu naarka lagu yaqaano dad kala laalaado midba ka kala gumada calaalinayo ama sifaadka ahlu janna lagu yaqaana wa wanaza'na ma fi sudurihim min ghil ilahi ba tilmaamaya ahlu janna sifada lagu yaqaana waxa weeyaan wanaza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin أما ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق إلهي وحط الماما يعني صفة مؤمنين تكانطي إنان ضغا انتو يا حاسد نمدا يا حقد يا حنقرو فدا يا إسهايسة قلبك مؤمن كقلين سيدا أوجد أي النبي صلوات الله وسلامه عليه واكيت الماما يجند مركي قليان قنطرة بين الجنة والنار انت اللي تاغو ايا مؤمنين تلا صفينيا وان يرون هدي قلبك مدك كجرتي لغا سو غوريا waxaas yoodhan waxa kuugu filan cafwigu inuu xadiiskii sahih muslim ka ku yaalay nabigu leeyahay salawaatullaahi wa salaamu alayhi tuftahu abwaabil janna yawm al-ithnin wa yawm al-khamis fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi shay'a البابا جنة خميسة يسنين تالا فرابو نبي صلوات الله وسلامه عليه دبيتنا إلهي با قدام بالدافة قف كسته أو مؤمنان إلهي عدنا وشريك يالين دنبي سأل دافة لبا مويانا با إلهي إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء مد سقيا ولالكي يسهيين موياني وحما يدحيالين قرضا وحلا إله دابو النبي قولي فيقال أنذروا هذين حتى يصطلحا أنذروا هذين حتى يصطلحا أنذروا هذين حتى يصطلحا لبدا وحلا إله دابو النبي قولي صلوات الله وسلامه عليه سنينتي يا خميستي إلهي سبحانه وتعالى وددك ودن بدافعي إياك وحا إلهي إله دا أركو دا دبي قدك إنت إياكو كهشينيا إنت إياكو كهشينيا أركو دا دبو عليا بالله إله سبحانه وتعالى حتى أبواب السماء بكاغ في الميسة هداد ولالك أنقمد علشان يسوي شحنا إذن دحيا له الباب هذا السماء كاغ في المية وإلهي بالله أركو دا دبي قدك إلهي أنت صلح كسمينيان أما ضدك مسلمين تي أنت يسقى إيمانيان بالله سبحانه وتعالى ولذلك بالنبي وحديثك النساء وريني شيخ الألباني حسن ككوش يجي ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد قلبي أدونكما كلمان حاسد نمو يا إيمان كما وضع كلمان وحين تلمامينا نبي يعقوب وحو كهجاتشي نبي يوسف reerkoodii buu isugu keenay dabeetana waxay noqdeen usradii reer banu israa'iil ba uu ka bilaabmay waxay noqdeen majdiga taariikhda reer banu israa'iil waqtiyaday ugu sarreeyeen waayo
wuxuu keenay masar ayuu soo dejiyey aabihii iyo hooyadii iyo walaaladii oo dhan waa kii wada keenay masar isagoo ah maxay xaakimka masar ama wasiirka dhaqaale ee masar isagoo ah waxay ka mid noqdeen baa la yidhahaa ciliyat alqowm waxay noqdeen qoys fiican halkaasuu ka bilaabmay markaa reer banu israa'iil iyo jiritaankoodiiba gurigaasi wuu dumi lahaa haddaan ilaahay yuusuf u saarin laakiin yuusuf wuxuu noqday qaa'id ururin kara gurigan oo hayn kara nebi moxamed isagoo talkii eryanayaan oo nafta la isugu keeno daa'if qabto oo ka soo noqdo oo meeluu galala ayaa ilaahay qisadan ku soo dejiyey iyadoo loo tilmaamayo haddana qaa'idka waxa laga rabo iyo qofka la rabo inuu ummad hogaamiyo ama dad uu horkaco waxa laga rabo iyadoo la rabo in loo sharxo ayaa ilaahay qur'aanka ku soo dejiyey ficlanna wuu fuliyey nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markuu yimi furtay xoog ku soo galay kuwii kabala'aanta kaga saarayay magaaladii wixii la ogaa ku sameeyey ee sidii la ogaa u dhibay iska taga buu ku yidhi bale kuwii uu yidhi ha la laayo haddaa aragtaan astaaril-kacba iyagoo haysta qaar ka mida inta la soo qariyey ayaa loo keeno la yidhi waa hebeloo cafis doonaya iska sii daaya buu ku yidhi mar hadday soo gaadhsiiseen oo keenteen sii daaya buu ku yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh cikrama ka mida cuhmaanku uu keenay baa ka mida rag badan buu iska sii daayay waxaan leenahay ummad haddii la rabo alikhwa abnaa'i saxwa waxaan leeyahay salafinimada dhab tahay waa taa iyadu waaladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana walikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan waxaan leeyahay cid kasta oo culamo ah ama qaado ah ama rabta inay ummad hagto ama ummad burburta inay dib u soo dhisto waxaa lagaaga baahanyay kow inaad carabkaaga ilaaliso waana dadka xagxaganin waxaa kaloo lagaga baahan yahay laba inaad qalbi ballaadhnaato oo dunuub yaroo lagaa galay ama mashaakil cidi ku gaadhsiisay weliga aanad xambaarsiisnaanin xataa culamaa'i tibi waxay yidhaahdaan qofka wax yeela iyo ka wax la yeelay bay yidhaahdeen ee tabanaya wax ka wax la yeelay baa xanuunsada bay yidhaahdeen waxaanu ku xanuunsadaa bay yidhahdeen cuqadka nafsiga ee qalbigiisa degan iyo caradan uu la seexan laayay kii wax yeelay inuu iskaba seexdaabaa laga yaabaa waxaa habboon baan leeyahay markaasiyo kusoo koobaya isqabsi guri weyn siduu u galay waynu arag guri yarna siduu u galay waynu arag guri weyn innagaa tusaale oo waynu naqaanaa guri yarna qur-aanka inooga warramo waynu arag sidii loo hagaajiyeyna waynu arag nebi moxamedna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh siduu wuxuu islaaxiyey waynu aragnay iyo nebi yuusufba abi bakar halkuu istaagay mowqifkiisii waynu aragnay ilaahayna qur-aanka wuxuu inugu leeyahy idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiid haddii xuma lagugu sameeya baa ilaahay yidhi wanaag ugu abaalgud waxaad arki doontaa baa ilaahay leeyahay adiga iyo kii xumuhu idinka dhexeeyeen oo ah maxay weli xamiima walidaalik baa waxay sheegaan oo yidhaahdaan abaalmarka ugu kulul ee qof lagu dhuftaa waxa weeyaan bay yidhaaheen qof kaa sugayay inaad tunto haddaad hadiyad u geysa bay yidhaahdaan wuu bururayaa qofkaasi yacni qof intuu wax ku yeelay sugayay dee adiguna markii alla kuu soo gacan geliya inaad ka takhallusto haddii aad weliba adigu wax siiso qofkaasi bay yidhaahdeen yacnii qabow daraaddeed wuu bururayaa hadhow meel uu joogo xataa laguguma soo qaadi karo hadal xun inuu isagu kumaaga daaye inuu isagu kumaaga daa dib u dambayse laguguma soo qaadi kara agtiisa maxaa keenay waxaa keenay idfac bilatii hiya axsan waxaa keenay alcafw waxaa keenay alcifatu lisaan waxaa keenay dhowsooni waxaan kusoo koobayaa qisatu yuusuf duruus aad u badan baa ku jirta dariska kan laakiin waan u qastiyey meelo badan oo soomaaliya joogtaan ka akhriyay waa ku celcelinayaana weli waayo waxaan rumaysnay inay weli inaga dhaadhicin inaan weli soomaali u daadegin baan rumaysnay walidaalika waa isku dayayaa meel kastoo soomaali joogto aan tago inaan dariskan ku celiyo